akhyaarta qiimaha badan soo dhawaada waa saaxiibkiina Cusmaan oo mar kale idiin wada sharaxaada film kale maanta waxaan idiin hayaa film American sci-fi action ah lana yiraahdo Jumper soo baxay 2008 sharaxaadiisa waa tan ay ka bogasho wacan filimku waa mid ku bilaabanaya wiil loo magacaabo David oo iska ah ciyaal iskuulle isla markaana wiilkan wuxuu aad u jecel yahay gabar loo magacaabo Millie gabadhan oo idan mid ku waalan waa mid aad u jecel in dalalka adduunka ku yaala oo dhanba ay maalin ku soo dalxiisto balse dhibaatada jirta waxay tahay in shiidka ay tahay Davidna uusan ka roonayn markaysa iskuulkii ka soo baxayeen David waa mid saaxiibadiisa siinaya hadiyad yar taasoo ahayd dhalla ay ku dhex jirta taalada Paris xaggaas u imaanaya wiil Mark loo magacaabo oo ciyaal food iskuulka kamid ah markaasna dhaladii kaga tuurayaba hara markaas barfsaneed oo xagga ku taalay David se oo hadiyadaas ma aqaan mashaafto ku soo gaday aan ka sabri karin waa mid haradii ka soo qaban maagayo tanona ku sabtay wiilkan barafkii meeshas uu ku dhalaalo ama uu la dumo wiilkii David ahana wuxuu kolka isku dayaa in nafsadiisu ka badbaadsado meesha maadaama cagihiisu balaayo ku soo doontay balse wuxuusan isku ogeyn baa dhacay wiilkii waa mid si mucjiso ah markaa meeshii kaga soo baxaya isla markaana isku arkayaba isagoo dhex jiifa maktabada iskuulkii ay dhiganayeen aadna ula yaabay wiilkan cidda xaggaas keentay intaas kadib David isagoo yaaban waa mid gurigii dib ugu soo noqonaya isla markaana aabihiis oo ah mid naxariis laaba ah markasna wiilkan ku qayliya waa mid qaylidiisa bilaabaya wiilkan waa mid kolkaas aabihii albaabka ka xiranaya balse aabuhu waa mid jibinaya albaabkii hasaatee wiilkii yaraa oo haatan awood uusan hore isugu ogeynba helay waa mid haddana meeshii miriq ka mirqayaba aabihiina waa mid la yaabay wiilkiisii meesha uu ka baxay Davidna wuxuu mar kale isarkayaaba isagoo dhex jooga maktabadii ay iskuulkooda lahaayeen lana yaaban mar kale cidda halkaa keentay mar kalese waa mid miriq meeshii ku imaanaya dibna ugu soo noqonaya gurigoodii xaggaasna wiilkan wuxuu go'aansanayaa in aabbahankiisa qaylida badan markaasna ku qayliya in uu noloshiisaba ka fogaado isla markaana xaggaas ka soo qaadanaya dhammaan boorsooyinkiisii dharkiisii oo dhan kis lacagna aabihii ka soo xadaya intuusan magaalkaas ka teginse wuxuu aadayaa guriga saaxiibadiis isla markaasna isagoona macsalaameyn keliya guriga iridiisu dhigaya hadiyadii yareed ee goor hor uu siin jiray kana soo fogaanaya wiilkan magaaladii uu aabihii iyo saaxiibadiisa deganaa una soo safraya magaalada New York markuu sii mid magaalada New York waa mid ku degaya hoteelada kuwooda raqiiska ah balse wiilkan oo iminka helay awood uusan hore isugu ogeyn waa mid go'aansanaya inuu sii barto awoodan iminka noloshiisa ku soo biirtay isla markaana sheekadiisii mirqda markaa bilaabaya wiilkaas oo kolka magaalo iska dhex wareegaya wuxuu kolkaas ku soo dhacaya in uu dhaco bangi xagga ku yaalay maadaama iminka uu si fudud bangi ku dhici karo maqrintiisa markay ahayd galabtii wiilkan waa mid dhacaya bangi xagga ku yaalay kana aruursanayaba lacagtii xaggaas taalay oo dhan waxba uma uusan reebin bankigii warawoodan mirqda aad baan ugu baahnaan lahayn haddaan Soomaalinahay bankigii wiilkii soo dhacaysa oo mar dambe ogaaday in lacagtii meesha ay ka maqan tahay waa kuwo wacanaya booliska isla markaasna xilka waxaa loo xil saaraya ama baarida nin lagu magacaabo Ronland isla markaana ah nin manaxa ah naxariisna ma biixanba wuxuu kolkaas ninkan baara ah ka dalbanaya managerkii bankiga inuu la wadaago dhammaan dadka bankigan lacagtii u taalo sidoo kalena CC kamerada muuqaalada ay duubtay uu u soo diro dhanka kale muddo hal sano kadib wiilkii David ahaa waa mid haatan nolol heer sare ku nool isla markaasna mar walba wata shaqadiisii mirqda kuna nool wili magaalada New York guri aad u qurux badan ku nool sidoo kale si la mid ahna si fudud badalxiis ugu tago meel kasta oo adduunka ka doonayo hargeysa buu hal second ku imaan karay haddii doono waqtigaas David ninkii ahaa waa mid ku sugan magaalada London isla markaasna Big Ben iska meesha ku taalaba iska dalxiisaya ku baashaalay iska dul saaranba wuxuuna David soo aadaya inta kadib baar habeenkii lagu cawiyo oo xagga ku yaalay intuusa baarkaas jooga David waxa xaggaas ku arkaya nin isaga dhalinyaro ah Griffin lagu magacaabo Griffinna wuxuu kolkaas arkayaa in ninkan uusan caadi ahayn waxba ku jiro leeyahay ninkan inaan ogaadaa jirta dhanka kale ninkii Rowland ahaana uu xil saarnaa inuu soo ogaado dadkii dhaca bangiga waa mid meel kayna ku haysta wiil dhalinyaro ah isla markaana wiilkan isagana ah wiil sida David oo kale u boodboodi karo ninkan Rowland lagu magacaabo oo xogtooda dhan haya raggan boodbooda ama jambariska lagu magacaabo mirqda waa mid wiilkii dhalinyarada ka weydiinaya cidda bangiga dhacday balse wuxuu ku fashilmayaa inuu ka helo wax xog ah dhanka kale David wiilkii ahaa waa mid dib ugu soo noqonaya hotelkii uu ka deganaa magaalada New York kolkuu qolkiisa soo galayay David wuxuu xaggaas ku arkayaa ninkii Rowland ahaa oo qolkiisaba ku jira isla marhaantaana Rowland odagii ahaa waa mid u sheegaya David in xog kasta oo isagu ku saabsiisan uu og yahay kana dalbanaya inuu u sheego qaabkii ay ugu suura gashay inay bangiga ku dhacaan balse David oo imika u muuqdo mid fashilmay waa mid isku daya kolka inuu xagga ka baxsado hasaatee Rowland oo haysta machine loogu talagalaba
dadkan boodbooda in markaa lagu qabto wuxuu la dhacayaa wiilkii yaraa halka Davidna oo isagan isku dayayo in uu ka baxsado bahalkaas haatan korontada u muuqdaba ugu dambeyntiisa nasiib wanaag David waxa uu suuragelaya in uu ka soo baxsado gacantii ninkii Rowland ahaa kuna soo dhacay kolkuu uu mirmiq lahaa gurigii uu ku soo koray ee aabihiis uu ku noolaa aabihii oo kolkaa maqlana dhabaqa markaa guriga dhex yeedha waa mid arkaya wiilkiisii oo xaggaa jooga wuxuuna kolkaas wiilkiis ka codsanayaa in markale guriga uu dib ugu soo noqdo balse David waa mid aan ku faraxsanayn in markale aabihiis uu la noolaado maadaama uu yahay qof naxariis laaba ah David oo haatan magaaladii uu ku soo koray dhex warwareegaya wuxuu kolka aadayaa gabadhii saaxiibadiisa ahayd guriga ku nooleed isla markaana xaggaas kula kulmayaba hooyada dhashay gabadhan waxayna kolka u sheegaysaa wiilka in saaxiibadiisii amaba gabadhii Miil ahayd ay ka shaqayso baar xagga ku yaalo isla waqtigiisa David waa mid soo aadaya baarkii ay ka shaqaynaysay saaxiibadiis kolkuu soo gaara baarkii waa mid bedelay qorshihiisii ahaa in saaxiibadiisa uu la hadlo amaba uu la kulmo wuxuuna go'aansanayaa inuu xaggaas iga tago kolkuusa kasii tegaya maqaayadii wuxuu xaggaas ku arkayaa ninkii Mark ahaa ee ciyaalfooda ahaa xasuusanayna wiilkan wejiga David waa mid kolkaa inkiraya in uu David yahay mihii uu leeyahay iga tag inkaar qabtay Max wuxuu kolkaas istaajinaya wiilkii una yeeraya gabadhii Miil ahayd saaxiibadiis oo iidana wili ilaabin saaxiibkeedii hore waa mid xaggaas isku baranaya isla markaasna weydiinaysa sababta uusan u salaamin iyada maxaad salaamaysaa leeda hasaatee Mark ciyaalfoodadii oo aan wili ilaabin qarracdii qajacdii uu iskuulka ku hayn jiray waa mid feer la dhacaya wiilkii David xaggina waxaa ka bilaabanaya dagaal u dhaxeeyay Mark iyo David dagaalkiisa waa mid ku dhamaaday David oo ninkii Mark ahaa sheekadiisa mirmirqada markaas ku keenaba bangi ku yaala magaalada New York oo haatanba Mark waa mid ku sugan bangi xagga ku yaalay Davidna waa mid kolkaas Mark ka dhex tegaya bangigii uu haatan ku dhex sugnaa dhex joogo leh meeshada hal qabto isla mirmirqadiisina dib ugu soo noqonaya baarkii saaxiibadiis joogtay xaggaasna ku wada sheekaysanaya markale isla markaasna gabadhan waa mid markale weydiinaysa maadaama haatan magaaladii uu dib ugu soo noqday waxyaabo u qorsheysan inuu sameeyo wuxuuna kolkaa u sheegaya wiilka in dalxiis uu geli doono kana dalbanayana kolkaas saaxiibadiis haddii ay doonayso in isla wada dalxiis karaan labadooda Millie oo dalxiiska waa aad u jeclayd yaraantiidina jeclaydba waa mid si barig la'aanaba kaga aqbalaysa inay wada dalxiisaan labadooda waxayna kolkaa labadooda wadajir soo aadayaan magaalada Rome isla markaasna ku wada dalxiisaya balse toogtan mirmirqdii ma jirto waa kuwa soo raacay diyaaradii caadiga ahayd markaa lagu duuli jiray dhinaca kale New York wiilkii Mark ahaa ee bangiga loogu soo dhex tagay waxaa kolkaas qabanaya ninkii Rowland ahaa waxaana ka weydiinaya sida uu meeshan ku yimid una sheegayana wax kasta oo ku saabsiisan wiilkii David ahaa balse Rowland waa mid xog badan ba ka haysta raggan mirmirqleeya amaba jambaris lagu magacaabo aan markale dib ugu soo noqon oo dalxiisayaashii ku sugnaa Rome labadii saaxiibo waa kuwa iminka isaga dalxiisaya Roma waxayna kolkaa labadooda damcayaan inay galaan meel taariikhiya goob taariikhi markaa oo xagga ku taalay balse kolkaysan gelin ka hor ninkii ilaaliyaha ka ahaa meesha ayaa u sheegaya in meesha isaga tagaan maadaama iminka ay xiran tahay maxaadse ku taqaanaa David ninkii ahaa waa mid mirmirqdiisa isticmaalaya xaggiina saaxiibadiisa iyaga waa kuwa gelaya si markaa aan sharci ahayn intaysa dhismihii qadiimiga dhex warwareegayeen waxay ugu dambeyntii soo gaarayaan goob yani aan la ogolayn in la galo kuna xajirmayaba meeshii David wiilkaas wuxuu kolkaas ku dayaa in uu albaabka dhinaca kale ka soo furo isagoo isticmaalaya mirmirqdiisa xaggaas kula kulmaysa wiilkii Griffin ahaa ee dabagalka ku hayay wiilkan kale ee David ah intaysa labadooda xaggaas ku wada sheekaysanayeen wiilkii David ahaa waa mid isku dayaya in uu furo albaab aan la ogolayn in la furo Griffin wuxuu kolkaa u sheegayaa in uusan albaabkaas isku taaban haddii uu doonayo in saaxiibadiisa ay sii noolaato si lamidana wiilkan Griffin uu magacaabo waa mid tusaya David inuu isagana kamid yahay dadkan mirmirqlayaasha amaba jambarska lagu magacaabo isku koox bay yihiin labadooda intaysa labadooda meeshaas ku wada doodayeen waxaa albaabadii mid kamid ka soo galaya dad yani u muuqdo kuwa la shaqeeya ninkii Rowland ahaa watana mashiin koronto ah oo lagu qaban karo kooxdan mirmirqlayaasha balse dhalinyaradan iyaga oo isticmaalaya awoodooda mirmirqda waa kuwa nasiibkooda u wacnaa darteed xaggaas ama gacantii nimanka ka soo badbaadaya David oo wili saaxiibadiisa dhismihii ku sugan tahay waa mid markale dib ugu soo noqonaya goobtii xaggaasna ka badbaadinaya ama kala baxsanaya saaxiibadii intaysa banaankii ku sii wada socdeen waxaa markale wiilkan iyo saaxiibadii qabanaya booliskii ilaaliyaasha ka ah meesha waxaana loo soo taxaabaya labadooda xabsi xagga ku yaala si wax looga weydiiyo sababta sharci darrada ahayd ay meesha ku galeen hasaatee David intuu ku sugnaa xabsiga booliska waxaana laga weydiinayay arrintii sharci darrada ahayd wuxuu xaggaas ku arkayaaba hooyadii oo iidana meesha joogta aadna ula yaabaya sababta hooyadii meeshan ku imaaday hooyadiisna waa mid xaggaas buu u imaaday in wiilkeeda ay badbaadiso una sheegaysa in muddo 30 sakina gudaheed uu meesha kaga tago intaas kadib David iyo saaxiibadiis waxa uu suuragelaya inay xabsiga ka soo baxsadaan wuxuuna isla waqtigeena wiilkan saaxiibadiis u soo kaxeynaya dhinaca airportka si markaas ay dib ugu noqoto magaaladii ay goor hore ka timid balse gabadhan intay wadada ku sii socdeen waa mid su'aal aad u farbadan weydiinaysa saaxiibkeed maadaama ay iminka la yaaban tahay sida ay wax u socdaan waxna ayna ka ogeyn David iyo xaalkiisa balse David waa mid aan saaxiibadii u sheegaynin awoodan uu goor hore helay isla marhaantan u sheegaya inay dib ugu noqoto magaaladii ka timid
isagana uusan raaci karin maadaama howlgal uu xaggan uga harsan yahay. dhinaca kale aan dib ugu noqono waddanka Mareykanka, ninkii Rowland ahaa dambibaare ahaana waa mid taatikadii uu ku baaraya bedelaya isla markaana booqanaya aabaha dhalay David, waxaana ka weydiinaya wiilkiisa iyo cidda markaas uu saaxiib la yahay, balse aabahan waa mid u sheegaya in wiilkiisa uusan guriga joogin isla marhaantaana uu guriga ka cararay. intays xaggaas labadooda isku wareysanayeen, ninkii Rowland ahaa waa mid arkaya sawirka hooyada dhashay David, sida lamidna wax ka weydiinaya wiilkan hooyadiis meesha ay jirto. aabahaas waa mid u sheegaya in hooyada dhashay David ayba markuu 5 jir ahaaba ay guriga ka tagtay iyadan ay ka carartay. dhanka kale wiilkii David ah oo haatan saaxiibadiisa diyaarada ku soo ogaaday waa mid mar kale mirqmirqdiisa dib ugu imaanaya ninkii Griffin ahaa, wuxuuna kolkaas waxa ka weydiinaya arrimaha markaa ku saabsiisan boodbooditaankan kooda iyo markaa cid iiga cadigo ku ah. Griffin wuxuu kolkaas u sharaxayaa David in ay yihiinba koox Jambaris la yiraahdo, isla mar ahaantaana Jambariskan laga doonayba meel kasta oo adduunka kamida lana doonayo in la wada dilo dhammaantood, una sii raacinaya sidoo kale in dadka awoodan leh ay awoodantooda ku weyn karayaan dadka markaas isaga aad ugu dhow sida aabihii iyo saaxiibadii wax noocaas oo kale ah, maadaama sharciga Jambariska uu sida taaqorayo. isla waqtigiina wiilkii David ahaa waa mid mirqmirqdiisii ugu imaanaya magaaladii uu ku soo koray, xaggaasna ku arkayaba aabihii oo meeshaas ku suuxsan, isla mar ahaantan wuxuu u soo qaadaya hospitaalka, balse aabaha David waa mid adduunka macsalaamiyaba goor hore. intaas kadib David waa mid u imaanaya ninkii Mark ahaa ee alfooda ahaana uu goor hore bangiga ugu soo dhex tegayay, isla markaasna isagoo xanaaqsan wax ka weydiinaya Mark waxyaabaha markaas uu u sheegay ninkii Rowland ahaa dambibaare ahaa, balse Mark ayaa u sheegaya in Rowland uu og yahaaba wax kasta oo ku saabsiisan isaga iyo familkiisa oo dhan, wuxuuna mar kale David dib ugu soo noqonaya Griffin meesha uu joogay, isla mar ahaantaana sidoo kale ka codsanaya in saaxiibadiisa uu la badbaadiyo maadaama halis ay ku jirto nafteeda. balse Griffin waa mid u muuqda mid aanan xiiseyneynin in saaxiibadiisa uu la badbaadiyo. Griffinna waa mid kolkaasba miriq ka soo dhahaya meeshii dalka China isagoo joogana la arkayo, balse David oo isagan awoodiisa isticmaalaya wuxuu u soo dabaraacayaa dalka China kana codsanaya Griffin in nafsada saaxiibadiis uu garab ku siisay ay ku badbaadi lahaayeen. ugu dambeyntiisa Griffin oo ka cagjiida arrinkaas waa mid ogolaanaya in si wada jir howlgalkan ay u fuliyaan, iyagoona awoodii isticmaalaya waxay imaanayaan kolkaas airportkii ay kaga soo degtay diyaaradda gabadhii Miil ahayd, balse kolkaas qiyaasaya in diyaaradda ay muddo 1 saac ka horba soo degtay, haatanna Miili ayba magaalkiiba sii gashaba. isla waqtigiisa sidoo kale aadaya labadooda goobtii ay Miili ka shaqay jirtay, isla mar ahaantan moodaya in shaqadeedii dib ugu soo noqoto mar kale, balse gabar xaggaas ka shaqaynaysa ayaa u sheegaysa in xaggan uu yimid ninkii Rowland ahaa isagoo raadinaya gabadhii Miili ahayd. xaalku waa mid iminka kasii diray, isla waqtigiisa waxay sii aadayaan mar kale guriga gabadhan. ugu dambeyntiisa la kulmaya Miili oo gurigeeda ku sugan. Miili oo arrintan la yaabana ninkan airportka kaga soo war maxaa meeshan keen isleh waa mid mar kale David wax ka weydiinaysa yacni say wax u socdaanay leedahay ma fahmin sheekada anugu. David oo iminka ikhtiyaar kale u furnaysa waa mid u sharaxaya wax kasta oo isaga ku saabsiisan in yacni tiimir mirqlayaasha uu yahay meesha uu adduunka ka tii karo. shaxdiidan uu sheegaya intuusan Rowland ninkii ahaa uu iminka labadooda gacanta ku dhigin. David oo isticmaalay awoodiisi waa mid gabadhii xaggaas kala mirqaya mirq Rowland kolkuu soo gaaray qolkii wuxuu xaggaas ku arkayaaba in yacni meesha cid aysan joogin, balse ninkan oo wax badan ku og farsamo halkan lagu qaban karo waa mid kolkaas mashiin ay wateen yacni meeshii keensanaya. mashiinkana waa midba ka caawin kara Rowland in raggaas meesha ay joogaan isla xaadirkaanba uu isagana yacni mirq uu ku tii karo. wayna dhacaysaa midaas ninkii Rowland ahaa oo iminka mashiinkii isticmaalaya waa mid imaanayaba meeshii ay joogeen David iyo saaxiibadiisa lagu sii diray ninkii Griffin ahaa. ciidamada dambibaarayaasha ahna waxaa kolkaas u suuragalaysa in ay gacanta ku dhigaan amaba ay xirxiraanba ninkii David ahaa, halka Griffin kolkuu arkay in nafsadiisa ay dhibaato ku jirto uuba meeshii mirq uu ka soo yiri kaba soo cararay. aan dib ugu soo noqono goobtii dagaalka. David ninkii ahaa oo iminka gacanta u galay raggii dambibaarayaasha ah ee muddada faraha badan raadinta u jira raggan waa kuwo sidoo kale isku dayaya inay gacanta ku dhigaan gabadhii Miil ahayd maadaama ay moodayaan in iidan kooxdan boodboodayaasha ay ka mid tahay. balse nasiib wanaag waxaa goobtii dib ugu soo noqonaya ninkii Griffin ahaa oo iminka wataba mashiin markaas holcaya, holciisiina ku daarayaba ninkii Rowland ahaa iyo ciidamadiisii, halka Miili gabadhii ahaydsa ee iyadana sidoo kale xargihii lagu xeeray ka furayso wiilkii David ahaa. goob dagaal jecel isugu sheeganayaaye intay meesha ku wada sheekaysanayeen Rowland oo waxba aysan soo gaarin waa mid qabsanaya ama gacanta ku dhigaya gabadhii Miili ahayd. markay arrinkaas arkeen Griffin wuxuu kolkaas isku dayaa in mashiinkiisii uu ku gubo mar kale Rowland iyo gabadhii Miili ahayd, balse David ayaa u sheegaya in midaas uusan sameyn maadaama saaxiibadiisa ay iyadana sidoo kale gubanayso. xaggiina waxaa dagaal ka dhex qarxayaaba David iyo Griffin, isla mar ahaantaana dagaalkoodii wuxuuba gaarayaaba wadamo fara badan sida Dubai, Mareykanka, qaaradda barafka. dagaalkiisa ugu dambeyntii waxaa ku gacan sareynaya ninkii David ahaa, isla markaana tawarkii hormuudba ku jijibinaya ninkii Griffin ahaa. ugu dambeyntiina Griffin waxaa ka dhamaanaya awoodii markaa uu ku boodboodi jiray. intaas kadib David waa mid dib ugu soo noqonaya badbaadinta saaxiibadiis, isla mar ahaantaana
haddana waxaaba koronto lagu dhejinayaaba isla Davidkii balse ninkan David lagu magacaabo oo iminka gacantii u galaba ninkii Roland ahaa ugu dambeyn waa mid awoodiisii ugu dambeysay isticmaalaya dhammaanna burburinayaba dhismihii uu ninkan ku xirxiraba sidoo kalena xaggaasba kala soo biiday saaxiibadiis iyo ninkii Roland ahaa oo weli dhaqdhaqaaqaya waxaa mar kale loo celinayaaba safarkii mirqmirqda isla mar ahaantaana laga soo tuuraya magaalada Colorado ugu dambeyntiisa David ayaa u sheegaya Roland inuu isaga haro haddii kale uu nafsada dhaafsin doono haatanse uu ka qaleeyay intaas kadib waxaynu ogaanaynaaba in awoodan meesha uu ka keenay David inay tahaba hooyadiisna ayba tahayba dadkan iidana mirqmirqlayaasha ugu dambeynna filimkii waa mid ku dhamaanaya Millie iyo David oo dalxiiskoodii mirqmirqda sii wadanaya maxaad ka leedihiin filimkan awoodda David maxaad ka leedihiin haddii aad helayd awood noocan oo kale ah wadamo noocee aad dalxiis u tagi lahayd bangi noocee ayaad sidoo kale dhici lahayd waadna ku maasanta daawashada qurux badan aad ku soo gaartay ilaa gabagabada waa Cusmaan oo idin leh nabadgelyo